السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka koowaad marka labaad iyo marka saddexaadba waxaa mahad iskale ilaaha weynana abuurtay ayaa mahad iskale goobtana soo keenay. marka afraad waxaa mahad leh odayaashan iyo waxgaradkan iyo qurbajoog maxamed cabdiraxmaan xasan ciranug oo maanta igu soo booqday wadadii aan ku waday arrimaha bulshada dhaanka weyna magaalada Ceelbu cusbitaalka iyo dugsiga sare ee Faaracade ay ugu soo baqdeen maanta hawshaydii gudanaya oo shaqadii ku jira aad iyo aad ba maasantihiin. marka ugu horeysa ku soo dhawaada wadadii aan waday aan halka ka soo bilaabay haddana halka mar saad aragtaanin oo 1 kiiloomitir maanta aan wado ku soo dhawaada ba marka ugu horeysa leeyahay wadada waxaan u bilaabay markii aan arkay in cusbitaalka magaalada Ceelbu uu u baahan yahay ama arrimaha bulshada ee gadaashana ay u baahan yihiin wado loo maro xilliga dheeriga xilliga magaranaysa jiilaalka ay tahay ay ardaydu iyo dadka lagu wado cusbitaalka iyo waliba booyadaha ka soo dhameeya xilliga xaradda ay ku jirto dhaanka weyn magaalada Ceelbu markii aan arkay ayaan juhdi ku bixiyay wadada tan oo aan u sameeyay oo fikradeedan ka helay dad badan waa la tashaday ka bacdina hadii aan la tashaday iyagu lama soo qayb galin wadada dhismaheedii marka sidaas darteed baa igu kaliftay inaan wadadaas aan halka ka soo bilaabo iminkana waad aragtaan meesha ay marayso halka intagana waa bartankii marka waxaan leeyahay wadada tan saas ay u kaliftay wada la'aanta ka jirta arrimaha bulshada ka dambeeya markii aan arkay ayaan wadadaas sameeyay alxamdulillah maanta meel fiican bay maraysaa idinkana waa idinka mahadcelinayaa maadaama igu soo booqateen idinku isugu jira odayaashii magaalada iyo waxgaradkeedii iyo waliba qurbo joogta gobolka aad iyo aad baa maasantihiin waxaan leeyahay wadada tan waxay u baahan tahay wax qabad weyn in markaas wax la kala qabto ayaan u baahnahay laba nin oo dhalinyaro ayaa la shaqeeya iyo oday Ismaan Maxamuud Jaacbadle oo dhawaan isagoo igu soo biiray marka afartayda qof baan nahay afartayda qofna waxaan la baxnay magac la yiraahdo ururka halgan iyo waxqabad marka wadada asaasaan ku asaasay anaana maskaxdayda iyo juhdigayga ka keenay in wadadaas aan u sameeyo saddexdaas arrimaha bulshada kana harimaayo ilaa aan gaarsiiyo harada magaalada Ceelbu iyo cusbitaalka magaalada oo u jira 3 kiiloomitir magaalada iskuulka dugsiga sare ee Faaracade inaan saddexda baatarkadkiigu yahay meelood inaan gaarsiiyo insha Allah waana gaarsiin doonaa haddana waa aragtaan iskuulka aan ballasinahay marka alxamdulillah ilaahay mahadi weeye idinkuna aad iyo aad baa maasantihiin ka qaybgalka ay kala soo qayb gasheen assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ka timaado oo ay meelaan maraan haysan waxaan aad samaysay waa camal khayr ilaahay kaasiyo jasaayigeeda ilaahay kaasiyo annaguna wixii dadaal oo aan kula samayn karo waan kula samaynayna intaana hawsha laga sii kordhiyo maanta wadadii meel fiican baa ku saacadii ka watay isku dhowdahay xaggana waatan wadadii magaalada gashay oo deegaanka laba qof iyo hal nin iyo 3 nin iyo 4 nin waxba ma qaban karto wadanka waxaa lagu dhisaa iska iskuulka waa gaaraya marka odayaasha magaalada dhalinyarada dadka waxqabadka dadka dhalinyarada aqoonyahanka dadka magaalada jooga waxaan ku wacyigelinaynaa oo ay gaarsiinayna warka inagoo aan inta yar ayna gobol ugu qaybin magaalo kale uga qaybin oo dowlad uga qaybin oo ku filanay reer badbaadin iyo qofka dhakhtarka ka imanaya iyo gabadha lala cararayo oo muraysa oo dhakhtarka la geynayo wax weyn dadkana waa inay wixii aynu ku wacyigelinayno oo kaxayna caqabada aroorta dhameyn haddaynu saacad maalin walba dhibaadno oo soo qaadano alaabteenu halkaa gelino oo ka shaqayno wax weyn bay noo qabanaysaa wixii arka oo ama dibada joogeen ama dadka wadkiisa joogeenna anigu waxaan kilibkii hore soo duubtay dad badan baa idinka mahadceliyeen waana ku mahadsantahay Axmed bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaah Allah subxaanahu wa tacaala halkan isugu keenay inagoo nabadgelyo mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa tiimkan halkan baneeyay kolley waa meel loo baahan yahay wadooyinka magaalada Jeex wuxuu dhaxayaa meelihii ugu muhiimsanaa magaalada
sida iskuuladii iyo dhakhtarkii muhiimad leh dhakhtarka dee iskuulka waaba laga nagaan karaa marka biyo marayaan carruurta nagaadaaba la arki laakiin dhakhtarka marka dhibtu jirto oo qofka dhibaato hayso lagama nagaan karo waxa weeye waa tiin runtii marka biyo soo dhaca haddaan wax si kale loola macmalaadin intaan waxtar badan waa waxtar laakiinse wax ka sii fiican bay rabtaa sida jay oo kale rabtaa waa doox waa ku mahadsantihiin shaqada qabateen adiga iyo cidda ku helisaba waana meelaha laga helo khayrka oo qofku markuu doonayo aakhiradiisa meelaha uu wanaagga iyo khayrka ka raadiyo weeye waa camal khayri ah ilaahay subxaanahu wa tacaala jasadiisa dee kolle ilaahay baa bixinaya waana ku mahadsantihiin bini'aadanku dee waxa ninkaan bini'aadanka u shukriyo ninkaan ilaahay bini'aadanka u shukriyo ilaahayna kuma shukriyo waa ku mahadsantihiin shaqada wanaagsan aa qabateen waana leedihiin oo dee dadkii dhallinyarada iyo waxgaradka iyo xoolaha magaalada waa idinka wixii kale oo wax ka qaban kara oo meelaha joogan waxaan leenahay dee ku baraarugo wadooyinku waa camal khayri camalka khayriga qof kasta bitaalkaaga kaga qayb galo aroorta haddaad intaa soo qaadato geed ku marag jirtid ama maal jirtid geed ku marag waxtar bay dalka u tahay waa idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu الرحيم الله سبحانه وتعالى إله بمحضه ودلتن وحوي ودي عيلك قبانيسي iyo wadadii iskuulka qabanaysay wadadii dhakhtarka qabanaysay saddex baa bulshooyinka xagga wax naga xigaa wala ku dhowdahay tii biyaha iyo tii iskuulka iyo tii dhakhtarka saddexda dhakhtarkaasi u mawla odayaashu waxay ka warrameen warkii hore odayaashu u baabatay dhameeyay wadada tan waxay u baahan tahay dadweyne oo dhan bay u baahan tahay mid dibad jooga mid dal jooga way u baahan tahay الله سبحانه وتعالى وحدنا يا سيجا سبها هاته ما نحاول يروادهم فكا وحوي ودد مدودهم بكذا حيسا سلام كودهم بكذا حيسا وحمهيمة استرك مهيمة استرك بلا بشوا مهم قطقات وحمص وحدي مركا من سنتوي مادو ودد الملايين الله سبحانه وتعالى وحمدك ويلا برارشين دل يجبد وحي جوجا ودنينا يا ودلك وريع البوها إذا كغيب قاتان ودقدق وغيبتا وحلب وباهنتي عقب وباهنتي دقالي وباهنتي أنا وقعن بعض كشغين الودياشا كميدا حجيلاش لا قامية لكن تينك أحمد با كمسؤولة وريها كمسؤولة لكن الودياشا ما تلقى قامية باونهي لا شغية